waa muuqaal bedelay dareenka in ka badan 5.5 milyan oo qof kuwaasi oo dhammaantood ku micneeyay muuqaal wiil yar oo weli dhabarka lagu sido iyo hooyadiisu soo dhigtay barta TikTok-ga in aysan farxadda marnaba ku xirnayn lacag iyo ganacsi waaweyn. Gabadhan iyo wiilka yar ee dhabarka ku sido ayaa muuqaalkoodu aad u qabsaday baraha bulshada labadii maalin ee ugu dambeysay. Gabadhan ayaa waxay soo duubtay muuqaal iska caadi ah balse xambaarsan fariin cajiib ah oo ah farxadda inaysan ku xirnayn marnaba lacag iyo hanti badan oo kaliya ay tahay awlaad ku farxad gelisa iyo bulshada oo aad ula falgasho si ka duwan sida dadka qaarkood ay ku soo galaan aaladaha baraha bulshada. Ilmaha yar oo ay hayso ayaa bedelay dareenka dadkii daawaday oo gaaraya 5.5 milyan oo qof. Dhammaan dadkaasi ayaa falcelin cajiib ah ka sameeyay muuqaalkan. Ficilka ay muujinayaan ayaana ah mid laga dheehanayo farxad ku dhisan niyad wanaag iyo kalsoonida nafteeda. Haweeneydan bulshada qaybaheeda kala duwan ayaana aad uga falceliyay muuqaalkan. Sidoo kale dadka qaar ayaa tilmaamay in haweenka Soomaaliyeed ay baraha bulshada qaarkood ku soo galaan ayaga oo markaasi bedelay jirkooda, balse hooyadana ayay ku tilmaameen mid ku kalsoon nafteeda ayna fariin u tahay gabdhaha kale ee sanadihii ugu dambeeyay aaladan ku bedelay dhaqankooda iyo midabkooda oo Alla u abuuray si weyn ayaa bulshada iyo caalamkaba u gaaray muuqaalkani oo si weyn looga falceliyay. Aaladda baraha bulshada gaar ahaan barta TikTok-ga waxa ay kulmaysaa malaayiin Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan u isticmaala. Inkastoo labadii sane ugu dambeeyay dhaqan ahaan dhalinyarada ay ku soo bandhigayeen waxyaabo ka hor imaanaya dhaqankooda, diintooda iyo akhlaaqdooda. Sidoo kale dadka qaar ayaa soo gudbiya gaar ahaan gabdhaha muuqaalo aan u wanaagsanayn bulshada qaybaheeda kala duwan, taasi oo aysan tallaabo ka qaadin dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha kale ee ku shaqada leh aaladahan tiknoolajiyadda casriga ah ee si laba jibaarmaya. TikTok waa meel ay dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan ku kulmaan, sidoo kalena qaarkood ayaa ganacsiyadooda ku soo gudbiya si ay u gaaraan waxa ay markaasi iibinayaan bulsho kala duwan, taasi oo dhalinyarada qaar u ah fursad iyo maalgelin ay sameynayaan. Sida ka muuqata gabadhan iyo ubadkeeda iyadoo iska faraxsanayay muuqaalkan soo gudbisay, taasi oo inta badan bulshadu u arkaysay ficil kalsooni ay ku dheehan tahay in farxaddani ay tahay mid uusan qof walba heli karin. Waxa kaliya ee bulshadu eegaysay ayaa ah ilmaha yar ee sida dareen kale u faraxsan bulshadana ka soo hormuuqday.